Salaamu calaykum mar kale soo dhawaada dhammaantiin waxaan idin leeyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawaaw subscribe saar like saar asxaabtaada la sii wadaag waxaasoo dhan waa dhiirigelin adiga waxay ku tahay caawin anigana waxay tahay dhiirigelin waana wax aad u fudud haddaba soo dhawaada casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay ma suurtagal ah in YouTube-ka si fudud lagu jabsado ayanda waxaa jirta wax la yiraahdo maqaaxi ka soo dhaxal maqaaxi hebel laga soo dhaxlay maqal isku dhaaranay maqaaxi hebel maqaaxi Soomaalida dib socto waay Soomaalida waxa weeyaan waa dad magac bixinta ku fiican wax qaab darna iska bixinayaan oo la yaabay marka qaar marka aad kale marka ofris aad ku qoslayso marka suurtagal ma tahay maqaaxi cid kale laga soo dhaxal hadda maqaaxi laga baxshay YouTube jabsi wala gudbay in wax laga jabsado ama jabsi dhaxal maqaaxi kale suurtagal ma tahay hadaba taas maya labada waa suurtagal marka la yiraahdo waa la jabsan karaa qaabka loo jabsan karo saddex nooc ayaa ugu waaweyn oo caadi mid afraad ma jirto saddexda nooc waxa weeyaan horta marka koowaad in Gmail-kaaga in la password-kiisa in la helo password-ka Gmail-kaaga haddii la helo way fududahay in laga soo dhaxalto in maqaaxida laga soo dhaxlaayo saayid u fududaa waa haddii la helo Gmail-kaaga password-kiisa haddaba Gmail-ka naftirkiisa wuxuu yahay dadka Gmail-ada way kala duwan yihiin dad Gmail-adu waxa weeye waa Gmail professional ah qaabka u sameeyeen ama ugu sameeyay yihiin ka duwan dadka kale qof waxa weeye Gmail-kiisa uu sameystay password-ki Gmail-kiisa uu leeyahay Google habis uu ku furtay wax kale kuma sameeynin qofkaas password-kiisa dil helo wax walba way fududaa in lagu sameeyo laakiin dad qaar waxa jira markii Gmail-kooda markay sameystaan waxay ku sameeyaan wax la yiraahdo save ay ku sameeyaan oo number-kooda ay ku sii save gareystaan ku sii hagaajiyaan waxay kale ku sii sameystaan haddana Gmail-ka sii galiyaan waxa jira telefoonka haddana mail looga xidho code oo telefoonka aad isticmaalaysa ama computer-ka isticmaalaysa looga xiro ka bacdi Gmail-kaaga haddii laga soo kacsho telefoon kale ama laga soo kacsho computer kale inuu isla markaa Gmail-ka afriin lagu soo diro la yiraahdo Gmail-kaaga waa la kacshay waxa la kacshay telefoon kale ama computer digniin inay ku soo diraan qolada Google aad bay wax uga hortagaan waxyaabahan dadku isticmaalaan hacking-ka iyo qofka in Gmail-kiisa si password-kiisa tuugnimo loo helayo waxyaas aad u dagaal marka haddii marka arintaas aad marka aad sameysay oo Gmail-kaada marka aad ka taxadartay oo saas Gmail-kaada kuugu diiwaan gashanay way adagtahay in xataa Gmail-kaaga laga soo kacsho telefoon kale ama computer kale haddii qayb waxa jirta telefoonta ama computer-ka looga xiro code ah haddii marka Gmail-kaada laga kacsho computer kale ama telefoon kale uu jida code-kii uu weydiin wuxuu leeyahay code-kaas gali haddii qof gali waayo waxa laga yaabaa in ninka uu ka diido taa marka waxa waa Gmail-ka qofka iskala ay ku xiran tahay Gmail professional ahay oo qof aad u yaqaanay Gmail-kiisa aqoon u leh oo haystado yahay way adagtahay xitaa shaqada naftirkiisa email laga soo kacsho xitaa haddii mail laga soo kaciyo way fududahay ka tabatagiisa oo in isla markii la soo celisho ayaa fudud habkaas waa habka ugu horeeya ee ugu fudud ee lagu jebin karo habka labaad waxa jira adeegsadaan dadka hackerada waxana waa linkiguna waxa yahay boqolkiiba hal ayaa suurtagal noqon karta waxana waa website-yo waxay isticmaalayaan website-yo hacking-ka la shaqeeya oo waxaan hacking-ka la yiraahdo sameeya laakiin aan dhab ahayn oo boqolkiiba hal ayagu run ka sheegan inta kale waa been waxay ku leeyihiin si aad u jabsato Facebook si aad u jabsato Google si aad u jabsato YouTube isticmaal linkigan ku siinina ka bacdin waxa sameynaysaa linkigan ku share garay Google ama ku share garay YouTube meel kamid ama Facebook meel kamid ama aaladaha kale meel kamid ku share garay ka bacdin kulay qof kasta ee soo booqda linkigaas waxaad arki doontaa qayb ee aad ka dhex furatay profile-ka aad ka dhex sameysatay waxaad arki doontaa qofkaas Gmail-kiisa iyo password-kiisa ayaa ku soo bixi doona oo ku sameystay YouTube ama ku sameystay Google ama uu ku sameystay Facebook oo ka sameystay aad arki doontaa arinta marka u fiirsato marka waxa weeye waa arin aan inta badan aan run ahayn qolada YouTube-ka marka aad isticmaasho linkiyadaas uu ka xiri doona way ka diidayaan hadda adigu YouTube-ka aad leedahay YouTube-kaada community guidelines wax la yiraahdo ku dhacaya haddii comment caadi ah dad ku soo qortana qaybta comment aad soo dhigtana fariintaada dhan waa laga saaraa YouTube-ka haddii Facebook-ka waxa laga yaabaa in laga diido Google xataa meel kamid ah dad ku soo share gareys waxa laga yaabaa in laga diido maadaama ay aad uga hortagaan waxyaabaha la yiraahdo hackers ay aad uga hortagaan marka boqolkiiba hal waxa laga yaabaa in mar suurtagal ay noqoto oo qof password ay si degdeg ku helaan waxay ku sii xiran tahay haddana password-ka qofka dadka dib password-kiisu hadduu qofka uu adag yahay haddana way adag tahay in qolada linkiyada isticmaalo inay si fudud ku helaan haddana way sii adag tahay qaybta labaad waa qaybtaas qayb kale waxa jirta saddexaad
qaybta saddexaad waa qaybta ugu weyn waa qaybta hacking-ka caadiga la isticmaalo. Hacking-ka caadiga isticmaalaan waa qolyo waxay isticmaalaan code isticmaalaan, waxa la yiraahdaa code-ka caadiga isticmaalayaan qaybta markii YouTube-kaada ama Facebook-kaada markay ku sameeyaan waxa la yiraahdaa hacking-ka markay isticmaalaan oo jebinayaan password markii la weydiiyo ay meesha password-ka la geliyo waxay gelinayaan code ay gelinayaan. Code-kaas waa code awood badan isla markii wuxuu awood u leeyahay inuu u furmo ninka la yiraahdo password laan u furmo isla markaas uu dhaab geli password cusub inuu yiraahdo sidaasna qofku uu password cusub ku geliyo sidaasna loola wareego maqaaxidaadii. Hadaba midkaas marka uma badno marka dadka uma badno Soomaalidana aad bay ugu yar tahay. Midda kale ingaliireed waa xaway barnaamijkaas waa barnaamij aad u weyn code-ka la isma siiyo marka code-ka waxa dadka helaa la isma siiyo waxaan hacking la yiraahdo la isma baro. Shirkaduhu isma baraan laakiin waxa la isbaraa sida looga hortago ayaa la isbaraa marka shirkadaha xataa code-ka adeegsada shirkadaha waaweynka ama YouTube-ka ama Google-ha ama Facebook-ka dadka code-ka hacking-ka yaqaana waa dad aad u yar. qofkii barta xitaa iyagu ay baraan oo sida code wax loo jabiyay bartaan ama la isaga ilaaliyo ay la baro qofka hadii marka la baro sida code-ka la isaga ilaaliyo code-kaas wax jabiyo la isaga ilaaliyo ama linkeeda loo ilaaliyo wax jabiyo hadii la baro qofkaas wuxuu u badan yahay inuu barto sida hacking loo sameeyo. Laakiin hadii ogaadaan dadka hacking sare shirkadaha dadka hacking-ka yaqaana ee iyaga la shaqeeya hadii shaqada ka tagaan qofkaas ama way dilayaan ama xisinayaan dhaqaale qof filan inta badan qofka haduu xitaa yaqaan saak loo jabiyo shirkadaas uma fasaxaan sababta waxa weeye qofkaas hadhow ayaga ayuu qatar ku keeni karaa shirkadaha kale ayuu qatar u keeni karaa marka inta badan qofka dadka hacking yaqaan waa dad aad u yar marka hacking-kaas kale waa la isticmaali karaa laakiin hacking-kaas oo weyn oo kale dadka Soomaalida ay yaqaanaa aad bay u yar yihiin maadaama code-ka aan la siinin code-kuna uu yahay wax aad u weyn oo adag qofkii helana cid walba maqaaxideeda oo ka soo dhaxali karo marka hadaba barnaamijkan Soomaalida ee maqaaxida dhaxalka la yiraahdo waxay noqon kartaa mid run waa noqon kartaa been waa noqon kartaa laakiin waxay u badan tahay inta badan inay tahay arrin la xiriirta in la helay password-ka qofka maqaaxidiisa laga soo dhaxali karo ilaahu aan maqaaxiyeen laga soo dhaxalin Allahumma ajna magacooda ma sheegayo maadaama marka waxaan idin rajaynayaa dhamaantiin haddaad daawatay fiidiyowan aadna ka hesho asxaabtaada la wadaag subscribe-na saar dhamaantiin waxaan idin leeyahay waqtigu ha idin wacnaado.